الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كسر هذا حلقة إن العصب إيو موجبك أن ما أنت يدين وضو إلهي وحن كبر يا إنه دمانتين إنجي والدين تني تذكر وشعلنا هيبا إن كل مية إنه جد كي سرات كجدبني قداشن وياهي الباب ذي كنا ظهر تاجن ملائكتنا أين ليهن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم آمين موجب كان مانتا وضا وموجب كصابسا سامحادا يعني مركا وحلا كلا إيبسانيو سامحادا سو إيبسيغا يوليبا تا إيبسيغا وموجب كميد موجبات الجنة waxay isku saamaxayaan markay wax soo iibsanayaan way dul qaadanayaan inta laga soo siiyay ay soo iibsanayaan ama qalaha tama hayarato markii si iibinayaan sidoo kale inuu qofka aanan waxba haysanin ayay mataqaanay u khafiifinayaan waana mid soo saarta runtii akhlaaqda qofka islaamka ama qof kastaba xaqiiqadiisa oo mid soo saarta iyo akhlaaqdiisaba xabiibkuna sallallahu alayhi wasallam ayaa inooga waramay isagoo u ducaynaya qofkaas wuxuu dhahay Allah ha u naxariisto adoon ogolaada soo iibsiga waxa laga iibinayo iyo si iibinta waxa uu ku soo iibinayo ogolaanshahaasina waa muujib kamid muujibaat aljanna ama sabab kamid sababaha jannada lagu hanto ama lagu galo baraf xoogan ayaa daaya iyadoo bishii afraad lagu jiro ka karaale hada insha Allah wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay ayaa jannada geliyay adoomadiisa kamida adoonkaas talo muxuu ku galay waayo wuxuu fududeeyay iibsiga yani qofan waxba haysan baa u imaanaya qof ma garanaysaa ay ku adag tahay inuu wax iibsado waxaas laakiin u baahan baahay u qaba inta bixi ama iska bax ma dhahayo u ka khafiifinaya intuu haystay buu ka siinaya subhanallah qofkaas ayuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qofku ugu bishaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu duceeyay raxmadda ilaahay iyo baraka ilaahay raali hada banaanka baraf ayaa ka daayay aad u xoogan xitaa waraaqihii ayaa iga qoyay halkani ayaan ka sii wadanaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa qofkaas aan soo sheegnay ugu duceeyay raxmad ilaahay iyo barako qadaa waxa la dhahaa soo iibsiga inaad xaqaaga ku soo iibsato iqtidaa'na waxa la dhahaa si iibsiga yani inaad xaq dadka siiso subhanallah yani aadan dadka qof ku adag aadan noqonin hadii ma garanaysaa aad tukaan leedahay ama aad wax kale iibiso inaad qofka ma garanaysaa aadan ku adkaanin xaqooda aad siiso qof kastana ma garanaysaa meesha uu taagan yahay aad qiimeysay aadan qiimeynin alaabtu qiimaha ay taagan tahay dadka qaar markay doonayaan in ay qof amaah weydiistaan qofkiiba u iimaanayaan waana sabab kamid ah sababaha ay dadku ma garanaysaa uga tagaan ihsaan falka iyo ma garanaysaa dadka dukaamada haysta ama dadka wax iibiya ay uga tagaan ihsaan falka iyo in la isku ihsaan falo sababaha ay uga tagaan ayay kamid tahay waayo qof ayaa u iimaanaya isku dhigaya isku bixinaya amaah buu ka qaadanaya markuu amaahdi gacanta ku dhigo uu fulay isma taqaanaanba sanad 2 sano kadib inaad aragto laga yaaba marka sababtaas awgeed ayaana kaliftay in dadku ma garanaysaa wax iibiya ay dadka wax u amaahin waayaan ama ihsaankii uga tagaan qofkii ma garanaysaa baahna wax u siin waayaan ay ku adkaadaan inaynan amaah dambe bixin inaynan qof dambe wax siinin inaynan qof dambe ihsaan dambe u gelin qofkaasina runtii wuxuu iska awday ama iska xidhay albaab kamid albaabada jannada sidoo kale markaad xoolahaaga doonanayso ama qofkaad ku lahayd yani aad deyntii aad ku lahayd aad ka doonanayso si yaro qurux badan inaad uga doonato si yaro ixtiraam ku dheehan yahay waxa laga yaabaa qofkani inuu xanuunsan yahay waxa laga yaabaa inuunan awoodin inuu hadda bixiyo waxa laga yaabaa inay dhibaato haysato waxa laga yaabaa inay waxyaabo badan ka sii yihiin markaas waxa loo baahan inaad ka dhimriso waxaan halkan uga bishaarinayaa dadka ay deynta ku leeyihiin u cafiya hadii aynan bixin kareynin iska dhaafa ilaahay dartii ku dhaafa kuwaasi waa kuwa hananaya jannatul naciim jannooyinka ilaahay waayo arintaasi waa sabab kamid sababaha jannada lagu galo aynu isku dhimrino markaynu wax kala iibsanayno aynu iscaawinno aynu wax isku tarno si ilaahayna markaas inaga wax inoo taro jannooyinkiisana inoo geliyo waxaan ku kulmaynaa
isla xalqadan qaybteedii labaad ina mariya. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد كسر هذا إسلا حلقة دينا قيبت دي اللباد موجب كان ما توضع وموجب ميزانية أدو علوص له قفك كل رغمنا وجنة هنانية جنة كلية ماها برتن كجنة وهنانية يعني برتن كجنة وجنة هلك وصل رئيسة هلكاس أيو هنانية قفكاسي محو يهي تلو موجب كإيجينيا محو يهي صوبت إيجيني سامحيتها هاي برتن كجنة تلو محو صوضا أخي ديك ما أنت مع عبد الرحمن صايت قنام با قلت له محو صوضا أما ويلك هنقاد ما شاء الله وحنبي صوضا موجب هذا فضل لكن سبتك بدن كودو أينن أوجين أينن كور قبين ميزانية وكله هاي دينة إسلامك أما أمة المسلمين تا والموجب لي هذا لزوم الجماعة إن الأسكو حدنا هذا إن أن قوني الله بحين قف كستجار كيسوي استاجين إن الأسكو حدنا هذا إن جامعات لا هذا إن أنا كده بحين تتكاجا مامل كاجا علماء هذا إن هذا تتكاجا السنة بقول بحين هذا قوني اسكو تاج نقولين نبينا صلى الله عليه وسلم وحاول هاي كو شيطان أيا الله بيا لبنا شيطان مكفوجي هاي حتى فهمتي كو قف كادو كليه هاي شيطان بكل مان والله بكوه لكن هذه اللي بيهين شيطان أيا كفوج أو إلهي بمركز ودويهين قف كربها هذا بينه بؤد الجنة أما دحبرتن كجنة أما ماشي الجنة وصل يصدقوا كأجمع جماعين كو إسلامي ديني كو مساجد ده كو حافظها أضياشا ضدك مامولياشا مضحضة كأجدوه هكا دقاقين هكا فوقانين هكا بحن وضن كاغا قونيها يسكو تاقين هكا جينين دادك مسلمين تاه ومدن ولا لها هكا جينين قونينها وقبحن كدحشر وهدي أدونيسو موجب كميد موجبات الجنة إنا تسميسو سيداسنا أتكو هاناتو تحبرتمها جنة دا جنة كلية ما هو جنوين تحبرتمها جنة وهالكي وبيدا جنة كبلابمان وفردوس هلك أي كتالو وبيدا جنوين هلك كسو بتاعاني كسو بلابمان وين وجنوين وبياشي سايوهوس بتاعيان ورابيال باجيرا كوغو واقعين أدقوني وقبحضا دادكاغا أدقوني اسكو تاكتو madaxdaada culimadaada si ay u yaraadaan markaas madaxdii ama culimadii ama magaranaysa dadkii isku xidhnaa si ay u yaraadaan waxa kugu baaqay inaad gooni u baxdo inaad tahriibto inaad wadankaaga ka tagto in aad dadkaagii nacdo gooni uga baxdo dhinaca kaliya u istaagto si aad markaasi shaytaanka ugu gacan gasho hadii aad ogow ka baxdo jamaacadana waxaad ka baxday sunnadii haddaad sunnada ka baxdana waxaad u baxday dhanka iyo bidcada ciyaadan billaah qofka kalinimada iyo gooni isku taaga jecelna waa qof runtii uu shaydaanku ka guuleystay ama uu markaas ku guuleystay in uu ma garanaysaa ku lamaanaado oo uu gooni ula baxay waxaan rabaa maanta inaan muujib kamida muujibaat aljanna sheego isxasuusinana inaynu isku duubnaano iyo inaynu isku xidhnaano oo inaan gooni isu taagin tafaariiq kala noqonin safka muslimiinta waxaan rabaa inaan la hadlo dadka safka muslimiinta ee saa u dheer ee isku daba safanaysa isku daba taxan dadka raba inay laba ka dhigaan saddex ka dhigaan afar ka dhigaan kala qaybiyaan si markaasi ay u yaraadaan jamaacadihii muslimiinta isku tagi muslimiinta si ay u yaraadaan dadkaasaan rabaa inaan la hadlo oo aynu noqono dad isku xidhan oo aanan la mari karaynin oo hal safo qura hal hami hal wadahaya hal meel u wada jihaysan sidaas ayaan rabaa inaynu wada noqono aniga ma ilaahay xitaa saasuu rabaa inaynu noqono ilaahay subxaanahu jalla wa ala xitaa saasuu rabaa inaynu noqono nebiguna waa sida uu inagula dardaarmay uu inaga rabay inuu ina arkay inagoo waxay inoo kala goynayaan si qiimaheenu u lumo dhiiggeenu u kala fogaado oo amni la'aan isu tag la'aan sharci la'aan walaaltinimo la'aan halkaas waraabuhu inagu cuno muxuu qofkan shaydaanku gooni ula baxayaa sababtu miyaad garanaysaan waayo waraabuhu ma cuno adhigu markay isku jiraan tag bartamaha ku jirta ma cuno tag gooni u soo yara baxda ayuu qabsadaa oo uu la tagaayo cunaa maxaad ka fahantay dadkaaga ku dhex jir weliga
si aadan cadowga ugu gacan gelin waayo inta dadkaaga ku dhex jirto cadowga uma gacan gelaysid kuma soo dhawaan karaya xitaa uu ka didaya waana sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam inoogu sheegay kow shaytaanka ayaa la jira labana shaytaanka ayaa ka fog oo ilaahay ayay u dhow yihiin subhanahu jalla jalaaluhu sababta keenta kala tagsanaantana waa ibliis shaytaan iyo xulafadiisa aynu ka digtoonaano qabiilada qaar iyagoo meel iska fadhiya ninba iimaanaya gacan ba ay taagan buu leeyahay ana way kan dhulkan ana leh dadkan ana leh ana u soo halgamaya ana san sameynaya dadka qalbiyadoodu soo jiidanaya sidaas uu dadkii markaas ku kala fogeynaya qalbiyadooda oo uu dadkii ay isku nacayaan walaaltinimadii iyo isku duubnaantii iyo isku xidhnaantiina ay meesha uga baxaysa mid baa rabay sidoo kale inuu madax u noqdo qabiilkooda si qabiilkiisa loo barto midkaas oo ugu dambeyntii noqonaya sababta ay dadkani ku kala dhiman lahaayeen aynan xitaa jaarku milixda isku doonanaynin ee la kala didayo la isnacayo la leeyahay ma kala guursano saanaan nahay maxay baan nahay waxaasoo dhan dabkaas dadka shidaya waa hal iyo laba uu shaydaan gooni ula baxay ee aynu ka digtoonaano sidoo kale jamaacadaha masaajidada jooga nin baa u imaanaya qaladaadka ka dhacaya muadinka iyo imaamka iyo ayuu sheegaya si dadkii uga fogaadaan markaas oo meeshii nacayb uga dhasho arintaasina runtii waa cudur inahaya oo inaan ogeyn ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo kuwii dhaxli lahaa jannada dhexbartankeeda gacmaha oo isaa isku qabsadeen oo isku duubnaadeen awgeed allahumma aamiin waxaan ku kulmi doonaa muujibka kan inoo xiga السلام عليكم يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان وحد لربك إن أردت دخولها واصدح ورتل آية القرآن والبر بالأبوين يوجب جنة والوصل بالأرحام والجيران أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخ الإيمان واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن